Isabella waxay ahayd mid tasha harqaanka, waxayna ka shaqayn jirtay boqortooyo, waxayna toli jirtay dharka boqorada. Waxaa jeclaaday shaqadeeda dad aad u badan, waxayna ahaayeen kuwo u imaado si ay ugu tasho dharkooda. Balse Isabella waxay ahayd mid hamigeeda aad u weyn yahay, waayo ma ay rabin inay harqaannimo ka sii shaqayso. Waxa ay ku riyoon jirtay iyadoo guursanaysa boqorka wiilkiisa, waxayna jeclayd inay gasho nolosha boqortooyada. Kadib waxaa u imaaday islaam, waxayna ku dhahday, inta aad riyoon lahayd waxaan kuu keenay dharkan, waa inaad u tashaa boqorada, kana gaarsii inta la gaarin subaxdii. Waxa ay ku aadi doontaa xaflad. Waxayna ku dhahday boqorada dharka ha ka hadlaynin, waayo waxay ciqaabi doontaa haddii uu ka hadlaabo dharkeeda. Waxay ku aadi doontaa xaflad aad muhiim u ah. Kadib Isabella ayaa bilowday inay si taxaddar leh u tasho toobkii boqorada. Markii ay dhammaysay waxa ay hor keentay muraayadda, waxayna fiirinaysay inay wax ka qaldan yihiin. Waxaa cajabiyay toobkeedii, waxayna is dhahday haddii aan xirto qofna ima arki doono. Balse waxa ay ku fikirtay inay toobkaas xirato, ay iska dhigto boqorad ayna aado qasriga ayada. Waa ayna fulisay qorshaheedii, waxayna xiratay toobkii. Kadib waxa ay soo aaday bannaanka, waxay soo qaadatay faraskeedii, waxayna bilowday inay soo qaado waddo aad u dheer si ay u aado qasriga. Isabella intay waddada socotay aad ayay u faraxsaneyd, waxa ayna sawiranaysay in haddii ay tagto qasriga, albaabka laga furi doono oo la soo dhaweyn doono. Isabella ayaa aragtay amiirad kale, kadib waxa ay soo aaday dhankeeda si ay u weydiiso halka ay u socoto. Markii ay u imaaday amiiraddii ayaa waxa ay bilowday inay weydiiso, waxa ayna ku dhahday, ma aqaantaa waddada inta ay noo jirto qasriga ilaa ay halkan aan joogno. Isabella ayaa ku dhahday wax yar ay noo jirtaa, haddii aad rabto waan ku kaxayn karaa si aan kuu soo tuso. Amiiradda ayaa ku faraxday, waxa ay ku dhahday waxaan ahay amiirad, waxaana raadinayaa qasriga, waayo aabbahay ayaa igu amray inaan aado inta uusan dhiman ka hor. Kadib Isabella iyo amiiraddii ayaa wada sheekaystay. Markii ay isbarteen kadib ayay is soo raaceen, balse Isabella ayaa ugu sheekaysay amiiraddii kale inay ayada tahay amiirad, waa ayna ku khiyaantay. Sidaas daraaddeed way is soo raaceen. Waxay soo socdaan waxaa la gaaray habeenkii. Kadib waxa ay bilaabeen inay shitaan dab, wayna kor fadhiisteen. Amiiradda ayaa dhahday waxaan u soo aaday caasimadda si aan indhahayga u furto oo u arko waxa yaalla caasimadda. Waxay dhahday aniga hadda waan isku dhawaanay, kaama qarin doono runta. Waxaan u imaaday ayay dhahday in aan soo doonto aabbahay, waayo weli maanan arkin asaga. Isabella ayaa weydiisay aabbaha sababta hadda adiga ka imaaday. Waxay ku dhahday aabbahay ma ahayn asaga ayaa isoo koriyay, waxayna uga sheekaysay qisadeeda. Waxayna ku dhahday in aabbaheed uu ahaa boqor, kadibna markii uu dhashay ayaa waxa uu imaaday aabbaheed saaxirad. Markii ay u imaaday ayaa waxa ay ku dhahday gabadhan waxa ay ka qaadi doontaa boqortooyadaada. Sidaas darteed aabbahay waxay kula talisay inuu iska kayfageeyo, wuuna ka yeelay warkeedii, waayo wuxuu ilaalsanayay boqortooyadiisa. Kadib aniga ayuu soo fogeeyay, sidaa ayuuna ninka igu soo korsaday. Elizabeth ayaa amiiradda ka ballan qaaday inay aabbaheed la raadin doonto, waxa ayna u sheegtay inay leedahay awood badan, waxaana hoos jooga shaqaale aad u badan iyo ciidamo. Waxayna raadin doonaan aabbaheed si ay ugu celiyaan qasrigeeda. Waxayna ka dhaadhicin doontaa aabbaheed inuu saaxiradda tahay mid qaldan, gabadheedana ay fiicneyd. Balse Elizabeth been ayay u sheegaysay. Waxa ay xaday silsiladdii boqortooyo ee lagu ogaan lahaa boqorada wiilkeeda gabadheeda, waxayna iska dhigi rabtay inay tahay boqorada gabadheeda. Sidaas daraaddeed ay soo baxday habeenkii, wayna ka soo dhuumatay. Markii amiiradda soo kacday subaxdii ayay waxay fiirisay hareeraheeda, kadib waxa ay weysay inuu qofna ag joogin. Waxayna ku baraarugtay in laga xaday katiinkeedii. Waxa ay bilowday inay aad u xanaaqdo, wayna murugsaneyd. Kadib markii ay ku tashatay in ay raadin doonto Elizabeth meesha ay joogto, oo ay soo dhaqaaqday ayadoon ogeyn meesha ay u socoto.